waxaynu weli dhexda kaga jiraa munaasabadii aynu ugu talagalnay in aynu ku gudbino tacsiye iyo fariinba ka turjumaysa dhibkii ka dhacay 14 bisha magaalada Muqdisho xasuuqii arxam darrada ah ee loo geystay shacabka Soomaaliyeed waxaa halkan caawi isugu yimid culummo odayaal salaadiin iyo akhyaar ka tirsan jaaliyadda Birmingham si ay u cabiraan dareenkooda ku wajahan dhibka ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa asaguna halkan inoo jooga oo kelmad asaguna ku haboon ka jeedin doona imaamka Masjidul Rahma Sheikh Cabdiraxmaan Xirsi Sheikh Cabdiraxmaan Tajwiid Sheikh Cabdiraxmaan kusoo dhawow إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي وحكبرنا سبحانه وتعالى dadka geeriyooday ee shalay lagu xasuuqay magaalada Muqdisho Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu shuhada ka dhigo Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu tirinay shuhadada ummadda wuxuu ku daray dadka la gubay ama dadka gubtay iyo dadka guriga ku dumeen oo wuxuu yiri al-hariiqu shahiid wal ghariiqu shahiid wal hadmu shahiid dadkaas Ilaahay waxa uu bariyaa subhanahu wa ta'ala inuu Ilaahay ku daro kuwa shuhadada ah inta dhaawacantay Ilaahay waxaan ka baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu u booga dhayo run ahaantii waxaan horay uga dhicin Soomaaliya oo dhan uga dhicin ama xataa caalamka qaraxyadu ka dhacana horay uga dhicin baa ka dhacay meeshaas oo hal qarax oo kaliya oo dad inta la eego boqolaal oo 500 kor u dhaafay dhimasho iyo dhaawac ay hal mar ku wada dhacay maanan arag mana aanan maqlan wadamadii baabay oo Suuriya iyo hadal Ciraaq iyo Afghanistan iyo hal qarax oo intaas qof ay ku dhimatay ama ay ku dhaawacantay maana hore u maqal run ahaantii waa wax arxan darxa cid kasta oo ka dambaysaba Ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu ka argoosto oo Ilaahay uu subhanahu wa ta'ala naga tusa ajaayib qudratihi dadkii ka dambeeyay wixii soo abaabulay wixii wadayna oo halka hadda ku dhinteena waxaan Ilaahay uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu kula tacaamulo بعدله سبحانه وتعالى انت كدب رنهانتي انيغو اوغا فايديسانيا اعلامكي ميديا اوغا فايديسانيا waxaan ugu baaqaya qof kasta oo muslima gaar ahaan dadka luqadan ku hadlaya garanaya qof walba waxa uu awoodo oo ay kow ka tahay duco inuu dalkana u duceeyo dadkii dhibaatada gaartayna wuxuu ku tari karo uu ku taro qof kasta oo Soomaali ah oo daawan doona kaliibyadan daawan doona waxaan leeyahay waxaad bixin karta bixi Ilaahay dartii u bixi dadkii hadii Allah idmaayo kii dhintay waaba dhintay awoon ha ka tago laakiin waxa way asagu waa dhintay waxaana uga Ilaahay bareeyay shahiid noqda Ilaahay uga bareeyna laakiin dadka jajaban dadka caloosh ka soo jeedo dadka dhaawaca ah oo dhaawacoodu waxa weeye mid khatar ay mid fudud isugu jiro dadkaas waxay u baahan yihiin dhiig joojin bay u baahan yihiin gurmad degdega oo isbuuc gudihii la gaarsiyo wadankii insha Allah ta'ala qof walba uu taasaan ugu baaqaya inta kadib waxaan ugu baaqayaa rahanti dawladda waxaan ugu baaqi lahaa in ay furaan akoon gaar u ah arinta iyada ah oo dadka dhibaatadu gaartay wax loogu qabanayo inay u furaanna waa oo inoo soo gudbiyaan si degdega ayaan insha Allah ta'ala ugu baaqaynaa waanu bilaan hadaan nahay community-ga magaalada Birmingham waanu bilownay inaan wax aruurino insha Allah ta'ala anaga oo ka bilownay masjidka una gudbi doona insha Allah ta'ala xaafadaha iyo suuqyada gudbi doona biidillah tabaaraka wa ta'ala marka waxaan sugaynaa in si degdeg ah loogu soo diro oo ay mas'uuliyiintu noogu soo gudbiyaan meelaha aan ku soo hagaajin lahayn waanu garanaynaa dad ku hagaajino culimadii iyo jamciyaadkii iyo khayriga oo dhan baa gudihi jooga laakiin si arintan u noqoto arin la yaqaan oo meel walba wixii ka yimid la soo macnaha la garanayo waxaan sugaynaa insha Allah ta'ala inay noo soo gudbiyaan dadkii lagu soo qori lahaa akoonada lagu soo qori lahaa Allahna waxaan ka baryayaa subhanahu wa ta'ala mar labaad ku celinayaa inta dhibaatadu u naxariisto inta dhaawacana Allah u booga dhayo Allah subhanahu wa ta'ala intii laga dhintayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabr iyo iimaan ka siiyo bal Allah ka baryaynaa meel kasto ay joogaan Soomaalina amni iyo amaan Allah ka baryayaa subhanahu wa ta'ala kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba waxa weeye magaalo kasta iyo gobol kasta Ilaahay waxa ka baryayaa subhanahu wa ta'ala Soomaalida guud ahaan inuu qalbigooda isku dhinac soo jeediyo oo uu tuso xoogooda iyo midnimadooda Allah uu tuso subhanahu wa ta'ala iyo wanaagooda uu Allah tuso
maxaa yeelay waxaa wax lagu noqon karaa waa arrintii hadda sheekh faad ka sheekeynayay oo ahayd mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaaطufihim kamathali ljasad waxaa kaloo nabigu lahaa sal ly slam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda washabaka bayna asaabicihi sala allah alay wasalam waxaan leeyahay oo kale oo kusoo gabagabaynayaa ta'ba alcisiyu ida ijtamacna takasuran wain iftaraqna takasarat aaxaada uluhu haddii ay waxaa weeye hadday isu tagaan inay jajabaan ma ogola oo ma jabayaan haddii laakiin mid loo kala qaado mid walba dhinac baa loo kala u jabaysaa waxaa kaloo u dambaysanaya gabay kale allah u naxariiste xaaji aadan faqalooc ayaa waxaa gabayadiisa ka mid ahaa waxaa weeye ilka wada jirkooda ayay hilbaha adag ku gooyaan hadday inimo meel taagan tahay arax ma feenteen soomaaliyay midnimo iyo inaad waxaa weye isku dhinac u jeesataan baad wax ku noqon kartaan haddii kale waxaa weye dhibaatadu saas ayay u soconaysaa waa nagu sii fogaanaysaa allah naga qabto waxa dhibaatada nagu wada allahna subxana wa tacala maslaxadeeda na garansiiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu